geedi socodkan dhuusamareeb ama processka dhuusamareeb waxaan bilownay ayadoo mugdi iyo shaki badan uu ku gadaaman yahay hanaanka doorashooyinka waxaan bilownay ayadoo dad badanu shaki ay ka qabaan dhicitaanka ay dhacdo doorasho waxaan bilownay ayadoo dad badan oo aaminsan yihiin in dawladda ama maamul goboleedyadu si gaara ay wax u wadaan waxaan bilownay ayadoo lagu kala aragti duwan yahay maamul goboleedyada doorkooda iyo baarlamaanka doorkiisa waxaan bilownay ayadoo lagu kala aragti duwan yahay processka la mari doono iyo habka looga shaqayn doono run ahaantii saddexdii shir oo kanu ugu dambeeyo waxaan aruurinay macluumaad waxaan magacawnay guddi waxaan ka dalbanay inay noo soo gudbiyaan aragtidooda aqooneed oo hanaanka ugu roon ama ugu fiican doorashooyinka waxaan ku ballannay inaan halkaan iskugu nimaado dhammaanteen annagoo raalli isaga ah markii halkaan aan nimid dabcan sidii aan rabnay kuma wada imaan saaxiibadeen qaar ayaa maqan sida madaxweyne qoorqoor oo hore u sheegay haddana waxaa nala soo dirsay shaki ah kolley kuwa jooga iyadoo weliba dhaaneesyo fara badan iyo naloo bixiyey inaan wax alle waxay dawladdu la timaado ku raaci doonno waxaa lagu gadaamay oo lagu abuuray shaki ah inaanan fiiri doonin processkii aan soo marnay iyo wixii aan labadii shiroo ka horreysay aan ku heshiinay in halkaas looga dhaqaaqi doono oo processku baabi'i doono waxaa ilaahay mahaddiisa tanaasul fara badan isku soo jiijiid fara badan dhafar badan inaan keennay doorasho aan isleenahay waxay ka turjumaysaa xaaladda waddanku hadda ku sugan yahay waxay ka turjumaysaa fikradda shacabka Soomaaliyeed waxay ka turjumaysaa xisbiyada iyo dadka naga maqan waxay ka turjumaysaa saaxiibadeena naga maqan waxay ka turjumaysaa waxay dadku ay hadda qaadi karaan waxaan rabaa inaan si gaara processkaas wuxuu ahaa process aad u dhib badan si gaara waxaan rabaa inaan halkaan oga xuso doorka madaxweynuhu ka qaatay arrintaas tanaasulka uu ka muujiyey culeysyadii haystay oo ugu dul qaatay culeysyadaasoo ha ka haystaano taageerayaashiisa legasiga uu jeclaan lahaa inuu ka tago culeysyada ka haysta inuu ka tanaasulay oo uu nala qaatay wixii inta badanu ay u soo jeedisay run ahaantii aniga madaxweynaha aqoon hor lahaan eega ziyaaday nabadoonnimadii uu sheegi jiray oo wax badan aan sugaynay dhuusamareeb ay ku dhacday waxaa kaloon rabaa inaan tilmaamo madaxweynaha martida aanu nahay iyo shacabka galmudug sabirkooda iyo dulqaadkooda iyo nabadoonnimadooda iyo xeelintooda iyo siday mataqaanaa mar walba ay nagula dhagaayeen gaar ahaan dadaalkii shakhsiyan madaxweyne qoorqoor oo u maray inuu mataqaanaa labadeena saaxiib oo naga maqan oo halkaan keeno waxaan marqaati ka kacaynaa inuu diyaar u ahaa inuu ugu tago meeshooda waxaan ka marqaati kacaynaa inuu dhammaanteen nagu qasbay inaan joogno oo aanan dhaqaaqi karin
weliba marmarka qaarkood meelo xun bay naga gaartay oo hadda aanan rabin inaan aad ugu sii fogaado nabadoonnimadaas marka waa ka dhalatay waxaan rabaa reer galmudug madaxweynihiinna karaamada iyo odaynimada iyo sharafta ka muuqataa waa taageeradiinna iyo sidaad u garab taagan tihiinna xoogaa waxaa la yidhi kor waayeel waa wada indhee waxbaan dardareemaynaahe madaxweynihiinna taageera haddaad taageertaan ood muxuu ahay garab istaagtaan noqonayaa qofkiina idinku wanaagsan waxaan wadaadada ka baqli jira ayagoo dhahaya muxuu ahay qofkii ilaahay jecel yahay cibaadadiisa midda ugu fiicnaa miisaanka loo saaraa kuwa xunna waa la iska dhaafaa haddaad taageertaan wuxuu noqonayaa qofka ugu caqli badan ugu dadnimo fiican ugu muxuu ahaa cilmi badan ugu aragti fog ugu sabir badan ayuu noqonaa mana aha wuxuu asagu ama la dhashay ama ku koray maahane waa waxaad idinku dul saarateen laakiin haddaad muxuu ahaay garbaha iyo lugaha aad qabataan oo dhuusamareeb muxuu ahaay layskaga hor yimaado galmudug meesha ay gaarayso meesha dad badanu danahooda ay uga soo tageen ma gaarayso intaasna dardaaran madaxweynaha waaye waxaan rabaa inaan ku qatimo hal kelimad soomaalida waxaan caadaysanay 4 sano markay dhammaato oo doorasho loo diyaar garoobaba in xumaanteennu soo kor marto oon isxagxaganno oo wax iska sheegno oon isdhibaatayno yaa caado noo noqoto wax hadda cusub maaha arrintaasu waxay caqabad ku tahay waddankaanu meeshuu higsanaa inuu gaaro waxay caqabad ku tahay in dadku kalsooni helo waddanka maal gashto iimaansado muxuu ahay laysku tooso waxay caqabad ku tahay in adduunyadu noo timaado oo waddankaa la maal gashto oo khayraadka aan leenahay aan ka faa'iidaysanno waxba kama duwana haddii hotel aan shirko ku nahay habeenkii marka xisaabta la xiraayo intii shurakada ahayd qof walba midi iyo baangad iyo bustoolad uu soo qaato oo u dhow xisaabteenna waa inaan ku kala baxno hadday habeen dhacdo oo habeenka ku xiga ay dhacdo ma idala tahay hotelkaas inuu sii shaqayn doono oo loo soo xiro doono oo la soo degi doono ma idala tahay waxaan nala ka rabaa inaan kala dooranno khayraadkeenna 200,000 oo tan oo malaaya oo aanaan anagu shilinka helina baddeenna laga qaataa sanad walba soomaali intaasaa ku filan intaan anagu isku sii jeedno badaheenni waa bayla dekadaheenni waa bayla khayraadkeenni waa bayla shicibkeenni waa bayla inaan 4 sano kasta aan isu soo qoryo qaadanno oon qarshe isu jabsanno soomaaliyay aan ka gudubno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu